malaayiin qof oo daafaha caalamka ku nool ayaa maalin walba waxa ay isticmaalaan baraha bulshada oo ay soo dhigaan sawirro aad u qurux badan. Sawiradaas mid kasta waxaa loo isticmaalaa tikniik gooni ah si loo qaado loona qurxiyo. Laakiin baryahan dambe waxaa aad iyo aad u soo badatay tikniik lagu magacaabo blur. markale kusoo dhawaada Higgs Technology, waxaan ahay Maxamed Xirsi. maanta hadduu aleed waxaan qaadan doonaa sida loo sameeyo blur adigoo isticmaalaya Photoshop-kaaga. kama hadlayo inaad isticmaalaysid kaamiradaada casriga ah ee waqti kasta kuu samayn karta wixii adiga aad doonto. laakiin aan soo kiciyo Adobe Photoshop CC 2017. markaa soo kicisid waxaan rabaa inaan soo geliyo sawir. waxaan leeyahay file, kadibna waxaan dooranayaa open. markaas oo halkan maraya waxaad dooranaysaa folderkii ama meeshii uu sawirka yaalay. aniga scrollka ayaa jiidayaa, kadibna waxaa soo dooranayaa sawirkan oo ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waqtiga kan aan duubayo fiidiyogan. kadibna open. isla markii uu sawirku sidan u soo muuqdo waad garanaysaan qofkan waxaad sameynaysaa. waxaa halkan ka dooranaysaa dhowr nooc oo lagu highlight gareeyo. haddaad doontid waxaan dooran kartaa toolkan oo asagoo ah midka ugu badan ee la isticmaalo marka wax la kala jarayo. laakiin aniga waxaan isticmaalayaa kan toolkan oo quick tool ah. quick toolkaas midka kor ayaad dooranayaa quick selection. kadibna waxaan dooranayaa halkan oo ah meesha laga weynaynayo ama laga yareynayo toolkan. kadib size-ka ayaan ku darayaa. marka intaas ku daro waxaa sameynaya halkan ayaa imaanaya. waxaa highlight gareynaya background-ka aan rabo inuu highlight ka saarmo oo ah background-kan ka dambeeya madaxweynaha, adigoo si taxadar leh u sameynaya selecting. marka selecting-kan sameynaysid ma la rabo in uu madaxweynaha ama si sawirkan qofka aad sameynaysid blur-ka meel ka gaaro oo gudaha u galo. laakiin sidaas ayaa ugu sameynaysaa blur. waxaa kaloo muhiim ah in sawir halkan markii meel sidan oo kale ay kugu adkaato inaad gudahaas gashid inaad dooratid halkan oo meesha size-ka laga yareeyo, kadibna size-ka aad yareysid, kadibna aad gudaha u gashid halka aad doontid ilaa sida aad doontid uu kaaga noqdo. meelo badan oo sidaas ayaa ka hagaajinaysaa. kadib gadaal ayaa u celinayaa oo control minus ayaa leeyahay. intaas markaan sameeyo waxaan leeyahay field, kadibna waxaan leeyahay blur gallery, kadibna waxaan leeyahay fill blur. kadib waxaa soo baxaysa halkan gadaale in zaa'id ay u qarsoontay blur ahaan. kadib waxaa sameynayaa halkan midigtan blur toolkan ay ku qoran tahay, meesha blur ay ku qoran tahay ayaan yareynayaa si ay xoogaa aga yaraato hadda sida uu yahay. kadib haddaad doono iftiinkan waa ku dari karaa, wax yar oo cadayda waa ku dari karaa. haddaad doonana inta ka dhaafo ayaan waxyaabaad kale ku dari karaa. haddaba marka aad rabtid inaad blur samaysid sidaas ayaa loo isticmaalaa. halkan iftiinka ayaa laga yareeyaa ama lagu daraa. hadba sidaa rabtid ayaad ka dhiganaysaa. waxyar blurka aan ku daro, kadibna okay ayaa leedahay. kadib control D oo deselecting ah ayaa leeyahay. kadib sawirka sidaas ayuu blur ku yeeshay. kadib haddaad rabto inaad save garaysid file, kadibna file ayaa leedahay, kadibna save as, kadibna magac ayaa ku qoraysaa, kadibna sidaas ayaa meeshii aad rabto ugu save garaynaysaa. sidaas ayuuna ku dhammaaday sawir blur ah. haddaa maqshid sidaas ayaa loo sameeyaa. kusoo dhawaada markale Higgs Technology. ha iloobina inaad subscribe saartaan, video sii share gareysaan, like-na aad noo saartaan. waa mahadsantihiin.